wararkii ugu dambeeyay ee xaaladaha bariga dhexe waxaa la sheegayaa in isfaham Iiraan iyo Cumaan ay ka gaareen arrinka marinka Hormuz waxaana la sheegayaa saacad kasta suurtagal inay tahay in lagu dhawaaqo heshiis arrinkaasi ku aadan waan idin soo gudbin doonaa intaynu barnaamijka ku jirno haddii arrimahaasi wax ay ka soo kordhaan ama barnaamijyadeena dambe ayaan idinkugu soo gudbin doonaa waa hagaag laakiin xagga Mareykanka haddii aynu eegno waxaa lagu soo warramayaa sababaha keenay Trump inuu ku dhiiran waayo dagaalka in la sii wado ama duulaan balaaran lagu qaado Iiraan Mareykanka oo gabaabsi ay ku yihiin noocyada kala duwan ee hubka gaar ahaan gantaalada wax lagu duqeeyo iyo sidoo kale gantaalada dhanka difaaca arrimahaasina waxaa la sheegayaa inay keeneen Trump inuu si adag uga carooday isla markaasna xogayihiisa gaashaandhigga si kulul u canaantay aynu eegno warar dhanka warbaahinta Mareykanka laga helayo oo arrintan la xiriira madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxaa la sheegay in toddobaadkii hore dood adag oo la yeeshay isla markaasna si adag u canaantay xogayihiisa gaashaandhigga Pete Hegseth kadib warbixino la xiriira kaydka hubka Mareykanka iyo suurtagalnimada in dib loogu noqdo dagaal balaaran oo ka dhan ah Iiraan sidan waxaa qortay jariirada Washington Post wargeysku waxa uu soo xigtay laba qof oo xogogaal ah waxaana ay sheegeen in kulan ka dhacay Camp David halkaasi Trump oo Hegseth u sheegay inuu aaminsanaa in dhibaatada yaraanta gantaalada riddada dheer iyo kuwa difaaca hawada horay loo xalliyay warbixintu waxa intaasi ay ku dartay in Hegseth mas'uuliyaddii uu weeciyay ku-xigeenkiisa Stephen Feinberg si kastaba ha ahaatee aqalka cad ayaa goordhaweyta wuxuu beeniyey warbixintan ay daabacday jariirada Washington Post afhayeenka aqalka cad Caroline Levitt ayaa ku tilmaamtay sida hadalka u tiriyay been abuur 100% ah warkan iyadoo sheegaysa in Trump kalsooni buuxda uu ku qabo Hegseth waa sida hadalka ay u tiri waa tahay warkaasna inta aynu kaga gudub xagga Israa'iil bin eegana haatan halkaas waxaa lagu soo warramayaa war weyn inuu ka soo kordhay askarta Israa'iil ee dagaalka Gaza iyo dagaalada kale ku geeriyootay ama ku dhaawacantay ayaa inta badan sida la sheego Israa'iil ay hoos u dhigtaa tirada laakiin macluumaadyo kala duwan ayaa marba soo dusaya wargeys ka mid ah wargeysada uu afka dheer Israa'iil ayaa wuxuu daabacay warbixin gudaha Israa'iil walaac ka dhalisay aynu eegno warbixintan iyo waxa wargeyska uu ku sheegayo hagaag tirooyinka soo baxaya ee qasaaraha Israa'iil ee dagaalka ayaa cabsi ku abuuray Tel Aviv iyadoo wargeyska iyo dhacoodka xaranood ee Israa'iil ka soo baxa uu daabacay xog daaha ka rogtay in ku dhawaad 9,000 oo askari iyo saraakiil Israa'iiliin ah ay dhaawacmeen tani markii dagaalka uu bilowday 7 Oktoobar 2023 dhaawacyadan ayaa lagu soo warramayaa in ay ku jiraan askarta ku dhaawacantay duulaanka Gaza, Lubnaan iyo Iiraan waxaana lagu tilmaamay inay muujinayaan heerka culayska iyo qasaaraha soo gaaray ciidanka Israa'iil sida ay sheegtay xarunta adeegyada caafimaadka ee ciidamada Israa'iil ku dhawaad 77% dhaawacyada ayaa dib ugu laabtay adeega militariga kadib markii la daaweeyay taasi oo la macno ah 7,000 oo askari iyo saraakiil halka inta kale weli ay ka maqan yihiin adeega sabab la xiriira dhaawacyada soo gaaray sida ku cad xogta ku dhawaad 3,600 oo ka mid ah 4,600 oo askari oo ku dhaawacmay jiida hore ayaa dib ugu soo laabtay adeega waxaana intaasi dheer ku dhawaad 400 oo xubnood oo ka tirsan cutubiyada taageerada dagaalka iyo ku dhawaad 3,000 oo askari iyo saraakiil ka shaqaysa hawlaha gurmadka iyo saadka xogtu waxay sidoo kale muujisay in kumanaan askari oo ka kala tirsan qaybaha ciidamada cutubiyada taageerada dagaalka iyo qaybaha maamulka ay dib ugu soo noqdeen shaqadooda halka in badan weli ay ka maqan tahay arrimaha ciidamada madaxa xarunta caafimaadka militariga Avi Shina ayaa waxa uu sheegay in nidaamka caafimaadka uu wajahayo xaalad aan horay loo arag isagoo xusay in caqabada ugu weyn ay bilaabato marka askariga laga saaro cisbitaalka maadaama daaweyn iyo baxnaanintu ay qaadato
waqti aad u dheer. Wargeysku waxa intaasi uu ku daray in dhaawacyada jireed aysan ahayn dhibaatada oo keliya, balse ay si weyn u kordheen dhibaatooyinka caafimaadka dhimirka iyo yaraanta shaqaalaha militariga. Ciidanka ayaa sidoo kale waxay hirgeliyeen barnaamijyo cusub oo lagu taageerayo askarta dhaawacantay oo ay ku jirto cutubka la yiraahdo Ram 2 kaas oo bixiya taageero nafsiyadeed iyo dabagal joogto ah. Warbixintu waxay sheegtay in ku dhawaad 170,000 oo askari badankooduna ka tirsan ciidamada kaydka ay codsadeen daaweyn nafsiyeed iyagoo ka cabanaya cudurro xagga maskaxda ah. Sidoo kale waxaa la diiwaan geliyey 16 askari oo isdilay ama nafta isdhaafiyey tan iyo bilowgii sanadkan oo keliya. taas tirada guud waxay ka dhigaysaa 66 kiis tani markii dagaalku uu bilowday. Wargeysku wuxuu arrintan ku xiriiriyey dagaalka socda yaraanta ciidamada, isagoo xusay in qiyaasa rasmi ah ay muujinayaan in tirada askarta la ildaran naafooyinka joogtada ama cudurro la xiriira adeega militariga ay ka badan tahay tirooyinka rasmiga ee la shaaciyey, taasi oo ka macno ah in khasaaruhu intaasi uu ka sii badan yahay oo wax badan la qarinayo. ayaa dhinaca kalena waxa isa soo taraya duqeymaha labada dhinac ay isweydaarsanayaan. haddaba wararkii ugu dambeeyey waxaa ka mid ah duqeymo culus oo Ruushku habeennimadii xalay uu ku qaaday gobollo kala duwan oo ku yaala dalkaasi Ukraine. ugu yaraan 6 qof ayaa lagu dilay, in ka badan 30 kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib weerar Ruushku habeennimadii xalay oo la beegsaday gobollo kala duwan oo Ukraine ka tirsan sida ay sheegeen mas'uuliyiinta dalkaasi. 3 qof waxaa lagu dilay magaalada Balaklia ee bariga Ukraine, halkaasi oo guryo la beegsaday, iyadoo kooxaha gurmadku saakay ay sii wadeen daminta dabka iyo ka saarista dadka burburka. Gobolka waqooyiga ee Sami ayaa sidoo kale waxaa lagu dilay 3 qof halka ugu yaraan 19 kalena lagu dhaawacay duqeymahan ka dhacay deegaano kala duwan. magaalada Sumi gudaheeda booliiska Ukraine ayaa sheegay in 12 qof oo kale ay ku dhaawacmeen weerar loo adeegsaday gantaanada lahago oo cirka laga soo tuuray. gobolka Kherson ee koonfurta wadanka 6 qof ayaa ku dhaawacantay kadib markii diyaarad aan duuliye lahayn ay beegsatay gaari nooca rakaabka ah. mas'uuliyiinta Ukraine ayaa ku eedeeyay Ruushka inuu sii xoojiyey weerarada ka dhanka magaalooyinka iyo kaabayaasha rayidka, halka Moscow ay mar kale beenisay inay si ulakac ah u beegsanayso dadka rayidka. dagaalkan oo bilowday bishii February sanadkii 2022 ayaa weli sii xoogaysanaya, iyadoo labada dhinac ay isweydaarsanayaan weeraro sawaariikh iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn loo adeegsanayo. wararka kale waxaa ka mid ah Ruushka ayaa maalmihii u dambeeyey waxa uu kordhinayay weerarada xagga cirka ee Ukraine, gaar ahaan magaalada Kiev iyo gobolada waqooyiga iyo bariga, halka Ukraine ay sii wado weerarada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ka dhanka ah bartilmaameedyo ku yaala gudaha Ruushka. labada dhinac ayaa wajahaya dagaal xoogaysanaya, iyadoo dadaalada dhanka diblomaasiyaddana iminka ay u muuqdaan inay gaabis yihiin sababo la xiriira dagaalka ka socda gobolka bariga dhexe.